السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada kulantii ismaqal wanaagsan oo sooban maantay muuqaal baan waxaan ka wadaa ama aan ka soo duubay meel madxaf ama museum ah oo ay ku kaysan tahay taariikhda islamka iyo dhammaan agabkii iyo aaladii la isticmaali jiray waqtiyada hore oo ay waliba isticmaali jireen dadka islaamka ama population islaamka marka agabkaas waa qalab laga keenay dhulka islaamka badankiisa laga soo ururshay runtii qalabkaas marka aragtid waxaad dareemaysaa ilbaxnimada xadaarada ikhtiraca farsamada adduunka wax cusub ku soo kordhinta in dhamaantood ay ka soo bilaabatay bulshada islaamka ama dadweynaha islaamka waana tan igu kaliftay inaan muuqaalka soo duubo runtii markaan arkay waxyaabaha quruxda badan oo meesha yaala oo ugu horeeyaan waxyaabo badan oo maanta dunida la isticmaalo oo la casriyay runtii waxaad dareemaysaa ilbaxnimada dunida maanta la sheegto ama la sheego in islaamku mar walba ay ka ahaan jireen marka saaxiibayaal waxba yaana warkay hadalkeedan ku dheereyn idinkii muuqaalka baan isaga keen dhaxbaxaya si aad wax badan uga bogataan runtii meesha waxa ku arki doontaa dahab ku arki doontaan qalabkii lagu dagaalami jiray waad ku arki doontaan ugu horeeyaan seefo sidoo kale qalabka waxa way dagaalka dadka gaashaaman jireen oo kale oo cambuur breedka wax la oran jiray oo kale iyo koofid breedka waxaas kale ayagoo arki doontaan dirabeedmo iyo agabyo kale badan oo mar walba aas-aasi u ahaa noloshii dadkii hore marka saaxiibayaal waxa laga yaabaa dadka muuqaalkeena xataa ka aragtaan dadka dhex aragtaan dadka ka dhex arki doontaan waa ardayda aan wax isla baran qaarkood iyo macallimiinta qaarkood dad kale waxa way ayagoo laftagooda meesha dalxiisayaal iyo booqasho ku yimidna in kaamirada qabato suurtagal ishiina qabato marka dadkaasna saas ay kaga jahli saaraya macna ogaalka guud ay kaga siinaya marka saaxiibayaal daawasho wacan oo wanaagsan hadaa muuqaalka ka heshaan like subscribe inaan ugu saacidaan baa idinka filanaa idinkana rajaynaynaa aad naguna taageerdaan aadna waan idinkaga mahadcelinayaa saaxiibayaal waxaa raaligelin idinka siinayaa habka aan wax u duubay runtii waxayd markii ugu horeysay aan vlog duubo wayse iga muuqataa waxa marka la duubo wuxuu u baahan in gacanta la fariisiyo mobilka dhaqdhaqaaqa iyo ruuxitaanka iyo nuxnuxsiga mar walba laga dhowro laakiin taas kuma baraarugsanan mar dambaan arkay in wixii aan duubiyo xoogaa boodbood ku jiro oo macnaha gacantii si la rabay aan u fariisin laakiinse cashar iyo khibrad iyo waayo-aragnimo aan ka kororsanay insha Allah muuqaalada xiga waxaan rajeynayaa wax fadhiya oo runtii daawashadooda aad ku raaxaysan doonto inaan idin soo gudbin doono haddii Rabbi idmo marka tanna nagu qaata intaasaan raba saaxiibayaal inaan mar kale idinku baraarujiyo waana mahadsantiin daawasho wacan oo wanaagsan indheena wax walba kaga bogtaa